2023 ayaan biyo helnay 6 sano oo manay 2023 bishan magaceeda muxuu ahaa July yaa biyaha naloo soo xiriiriyay waana dhargnay maadaama 5 sano iyo 6 sano biyo la'aan aan ahayn oo maanta biyo aan ka dhargnay Ilaahay bay ma haddaas u sugnaatay iyo wiilashii noo soo xiriiriyeen iyo dadkii ka shaqo tagay oo ka shaqeeyay dadkaas bay ma hadda u sugnaatay annaga oo buula safaa oo biyo la'aan intaas oo sano ahayn ma hadda Allah u sugnaatay kadib waxay u sugnaatay wiilkan hadda soo qaatay biyaha oo noo soo galay maasha Allah Allah barakeey iyo gafana hayna oo nadiif ah shukran waa mahadinaynaa mahad idaylkeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u sugnaatay marka kulli adduunka waa iska mixnadii imtixaan ana waqti dheer ba waxaan ku soo jirnay xogaa culays biyo la'aan aad noo haystay muhiimadda aan hadda meesha isku imaanay bariyahan waxaan helay biyo marka mahad Ilaahay bay u sugnaatay kadibna waxaan u mahad celinaynaa dawladdan shaqada hadda gacanta ku haysa ee iskale khaasatan ninkan biyaha u xil saaran aad baan uga mahad celinaynaa waa rafaadsanayna bulada aad bay iskaga rafaadsanayd marka waxaan leenahay dhammaantiin waad mahadsantihiin intii ka shaqaysay ajir Allah ka siiyo intii aan ka shaqaynin ee u suurageli waysay jecleed inay ka shaqaysana iyadana waxaan leenahay waad mahadsantihiin dhammaantiin aad baan u mahad celinaynaa khaasatan raggan shaqaalaha aad bay noo garab istaageen sida ninkan agteeda taagan oo kale yani waa dadka aad ila dagaalahay oo inaan biyahan aad u jeclaa waxaan maalinka biyaha aan soo xiriirnayna 4 saac iyo bar habeenimo ee shaqaalihii meeshan ka tageen oo biyihii baybabkii ay qodahayeen ilaa haddana way garab taagan yihiin meeshii leakage laga arko iyo meeshii bayb ka go'o marka waxaan ogaanay dad oo dawlad leh oo laga naxahayo oo haddii baahidooda ay meel geystaan heli karaan way haddii geystaanna wax loo qaban karo marka waxaan leenahay dawladda way mahadsan tahay it is going to most needed areas one of the most needed area is Balambala which we are having water problem for the last 7 months and I think it is going to be historical when this engine is taken to that end horta anaka reer Balambala aan nahnay aad baan u farxad badanahay waxyaalo badan oo shaqooyin badan hadda Balambala ka socdaan kolay tahay dietarka waxyaalo badan ka tag yaa shaqo laga qabta halkan sano oo governaha office-ka uu fadhiyo aad ugu mahadnaqaynaa